waxaan ku xamdinaynaa Ilaahay oo nabad nagu soo celiyay waxaan aad ugu faraxsanahay inaan si degdeg dalka ugu soo laabanay annagoo ka soo qayb galnay shirka COMESA oo Soomaaliya markii ugu horeysay ay ka mid ahayd wadamadii aasaasay balse aafooyinkii nagu habsaday awgeed aan ka maqnayn hadda waxaan nahay wadanka 22aad oo la aqbalay inaan ka qayb galno taasoo runtii cadeynaysa horumarka iyo talaabooyinka mugga leh oo wadankeenu sameeyo in loo ogolaado inaan ka qayb galno suuq ay ka ganacsadaan in ka badan 50 milyan dad tiradooda ay gaarayso kaasoo u sahli doona ganacsatada Soomaaliyeed in dhaqaalahoodu uu nabad galo inay u helaan fursad inay badeecadooda meeshay doonaan geystaan in ay u sahlanaato inay bangiyada wadamadaas oo dhan la xiriiraan in cid walba oo wadamadaas ka timid iyo dunida inteeda kaleba aanu isticmaali doono in caymis ay dhaqaalahooda ku yeelan doonaan dalka Soomaaliya in ay naga caawin doonto dib u dhiska dalka aan noqoto jidadka aan noqoto warshadaha iyo meelo kala duwan fursad aad u weyn aan aaminsanahay inay tahay waxaan aad ugu hambalyeeynayaa dadka Soomaaliyeed gaar ahaan ganacsatada Soomaaliyeed oo weligeed ahaan jirtay laf dhabarka bulshada marka la yiraahdo dib u dhiska dalka iyo horumarinta ganacsiga iyo dhaqaalaha iyaga ay fursad siin doontaa arrinkani marka ganacsatadeenu ay fursad helaan waxa fursad helay dalka sababtoo qof walba oo ganacsada oo bilaabo ganacsi wuxuu shaqaaleysiinayaa dad Soomaaliyeed wuxuu bixinayaa canshuurtaas waxa lagu dabooli doonaa adeegyada ay u baahan tahay bulshada ku beeritaanka COMESA waa qayb kamid ah shaqooyinka ugu waaweyn oo ah hadafyada dawladdu ay leedahay oo ah dib u falgelidda hay'adaha noo sahli doona inaan dib u dhisno dhaqaalaheena taasoo aad shirkii hadda ka dhacay Brussels midowga Yurub oo madaxweynuhu uu ka qayb galay aad ka aragteen in ka badan 50 dawladood ku dhawaad 60 dawladood ay u muujiyeen dawladda Soomaaliya inay tahay fursadii ugu wanaagsaneed ee dawladda oo ay kulligood ku rajo qabaan Soomaaliya inay ku soo noqotay meeshii mustaqbalka laga filayo halkaas oo iyada lafteeda ay ka soo baxday waxaan hore uga dhici jirin in dawladda Soomaaliyeed lagu kaalmeyn doono dhaqaale iyada toos loogu dhiibo laguna aamino qof walba Soomaaliyeed oo daawanaya markaa waxaan ka codsanayaa in dawladnimada dib loo dhiso wax aad u dhib badan lamana dhisi karo shacabku haddaanu garab istaagin sanad iyo labana lagu dhisi karo aan dul qaadano aan iimaan isgelino aan inta aan islaanahay wax weyn naga duminaysaa iska celino adduunyada aan tusino in sharafteena iyo karaamadeena inaan soo celino aan diyaar u nahay ma